Assalaamu calaykum akhyaarta sharafta badan kusoo dhawaada kanaalka dhacdooyinka dunida tube. Waxaan maanta idinla wadaagi doonaa dhibta haysata walaalkeena muslimka ah ee Daawud Kim oo ah muwaadin South Korea kasoo jeeda ama koonfurta Korea. Waxaan idinka codsanayaa haddii aad kasoo horjeedid dhibta loo geysto muslimka in aad ku taageerid walaalkaaga fariin aad ku cadeynaysid inuusan ahayn Daawud ruux xun ama qof xun. Waxaad kaloo laga doonayaa in aad meesha fariinta kusoo qodid in uu Daawud wax qalada uuna ku lahayn gafafkii ka dhacay waqtigii uu ahaa nasaariga ama masiixiga haystay diinta Kirishtanka. Waxaan kaloo idinka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka iyaga in aad nagu soo biidid oo aad saadhid subscribe-ta, sidoo kale aad like-ta riixdid si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Daqiiqado kooban oo aamusnaan ah kadib, YouTube-ka Kuuriyada Koonfureed ayaa iftiiminaya eedeymaha lagu soo oogay internet-ka. Sida laga soo xigtay Daawud Kim, dhacdada ayaa dhacday qiyaastii 1 sano iyo 2 bilood ka hor inta uusan muslimka noqon. 27-kii Juun 2019, keligay ayaan ku cabay baar ku yaal Hyundai, waa meel magaceeda. Waxaanan halkaas ku kulannay 2 hablood ama gabdhood. Waan wada hadalnay oo isweydaarsanay fariimo. Dhowr saacadood kadib, waxaan u diray qoraal mid ka mid ah 2 gabdhood anigoo leh waxaan doonayaa inaan kula kulmo. Waxay siisay ciwaanka gurigeeda, waxayna ii ogolaatay inaan imaado. Ayuu la wadaagay heesaagii hore ee K-pop. Waa sida uu sheegay Daawud Kim oo ah dhibanaha. Wuxuu sii sharaxay sababtoo ah aad ayaan u sakhraamay oo xaalad xun ayaan ku jiray. Waxay rabtay inay i daryeesho kadib markii aan in badan wada hadalnay. Waxaan ku seexday fadhiga kadibna waan iska madoobaaday oo ula jeedo waan dhacay hurdo badan awgeed maadaama uu ahaa dhafar. Qof baa qayliyay oo siiba aniga igu qayliyay. Waxay ii sheegeen inay boolisku ii soo sheegi doonaan. Gebi ahaanba waan argagaxay, sidaa darteed waan ka degdegay meesha. Waa sida uu sheegayo Daawud Kim. Sida lagu cadeynayo barta YouTube-ka, muuqaal 6 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi dheer tahayna, Daawud wuxuu kaloo sheegtay in isku dayga farxumeynta uu runtii ahaa shil. Baaritaankiisa kadib, booliska ayuu duriyuhu ku daray inuu la kulmay dhibanaha dheddigga oo uu raaligelin ka bixiyay. Markii hore waxaan mooday inaanan sameynin sababtoo ah ma xasuusan karo oo waan ogahay inaanan ahayn qof xun. Laakiin markii aan maqlay iyada, waxaan dareemay dembi. Wuxuu intaas ku daray waxay rabtay inaan raaligelin ka bixiyo arrinta. Markaa waxaan ku kulannay foolka fool 5 Luulyo 2019. Si daacad ah ayaan u raaligeliyay, wayna aqbashay. Waxaa jiray dukumeenti ku saabsan arrintan, ahaana dukumeenti heshiis ah. Intaa waxaa sii dheer, Daawud wuxuu sheegay inuu horey u soo dhigay bayaan uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka si uu wax uga qabto dhacdada. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku dhammaaday muuqaalkaasi tirtirka si looga fogaado inuu dib ugu soo laabto shabaqa. Daawud wuxuu soo gabagabeeyay cajaladda isagoo u xaqiijinaya qof walba inuu ka toobad keenay shilka, maadaama uu si kadis ah u weydiistay cafis xagga Eebbe iyo sidoo kale macaamiisheeda iyo taageerayaashiisa baraha bulshada. Wuxuu sidoo kale muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay kuwa taageeray muddadii adkeyd ee uu dhibta ku guda jiray. Halkaana waxaa inoogu eg barnaamijkeena aan uga hadlaynay dhibta haysata walaalkayaga Daawud Kim oo ah muslim kasoo jeeda dalka South Korea. Waxaan jeclahay muuqaalkani
inaad ka bogan doontid. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.